toddoba nin oo aan weligood jannada gelayn naxariista ilaahayna laga dheereeyey oo la lacnaday. Asxaabta qaaliga, waxaan rajaynayaa dhammaantiin inaad caafimaad qabtiin, anigana sidoo kale aan nabiga ku salino sallallahu alayhi wasallam. Intaanan bilaabin waxaan ugu waajibay inaan ogaano naxariista ilaahay inay shay kasta gaartay. Adduunka ayaan ugu noolnahay si nabadgelyo ah, jannadana waan gelaynaa, shaqooyinkeenoo dhanna si fudud ayaan u qabsannaa. taasina waa naxariista iyo fadliga uu ilaahay nagu manaystay. mar kastoo ay naxariista nusqaantana ummadihii way halaagsamayaan. ilaahay caza wajalla wuxuu noo sheegay 7 nin kuwaasoo laga dheereeyey naxariista ilaahay, uuna ugu bishaareeyey cadaab xanuun badan. yay yihiin raggaas, maxayse sameeyeen? muuqaalkan dhexdiisa ayaan ku bari doonaa keena. laakiin intaana muuqaalka u gudagalin asxaabta qaaliga, waxaan idinka codsanayaa inaad channelka subscribe saartaan, gambaleelkana u furataan, muuqaalkana like saartaan oo sii share gareydaan. waa codsi asxaabta 10 kunna gaarsiiya. mahadsanidin. rasuulkeenu wuxuu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam arrin kasta oo ay ku soo aroortay lacnad ilaahay xaggiisa ah, qofkii sameeyay wuxuu noqonayaa qof sameeyay dunuub kabaa'ira iyo dambi aad u weyn. lacnada ayaa ah in ilaahay naxariistiisa qofka laga dheereeyo. qofkii uu ilaahay lacnadana waa qof ka fog naxariista ilaahay. in la karaameeyo iyo in ilaahay uu cafiyaba wuu ka fog yahay. ilaahay ayaan weydiisanaynaa nabadgelyo iyo caafimaad, waxaana ka magan galnay aarsashadiisa iyo ciqaabtiisa. ilaahay ayaa kitaabkiisa ku yidhi inna allaha lacana alkaafiriina wa acadda lahum saciira. ilaahay gaalada wuu lacnaday wuxuuna u diyaariyey naarta saciira. wa qaaluu quluubunaa qulfun bal lacanahumullahu bikufrihim faqaliilan maa yu'minuun. ninka koowaad oo la lacnaday jannadan aan gelayn ayaa ah qofka waalidkiisa caaya. rasuulka ayaana yidhi sallallahu alayhi wasallam lacana allaahu man sabba waalidayhi. ilaahay ayaa lacnaday qofka waalidkiisa caaya. waxaana la mid ah qofka waalidkiisa ku caasinimo fala asagoo ilaahay amray in waalidkii ixsaan loo sameeyo. kaliya ma ahan inuu qofka waalidkiisa caayo, ee mar kasta oo uu qof kale waalidkiisa caayo, waalidkiisina wuu caayay. tusaale, qof ayuu waalidkiisa caayay, asagana waalidkiisa ayaa la caayay. waalidkiisa ayuu caayay maxaa yeelay asaga cayda u soo jiiday. sida saxiixaynka ku sugan, nabigeena nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee wuxuu yidhi min alkabaa'iri shatmu rajuli waalidayhi. waxaa dunuubta waaweyn ka mid ah qofku inuu caayo waalidkiisa. asxaabta ayaa dhaheen rasuulka ilaahay oo qofku waalidkiisa ayuu caayinayaa? wuxuu yidhi haa, maxaa yeelay nin ayuu aabbihiisa caynayaa, asagana aabbihiisa ayaa la caynayaa. ama hooyadiis ayuu caynayaa, asna hooyadiisa ayaa la caynayaa. dadka in la caayo ayaa ah dembi kabaa'ira, gaar ahaan markii xaq la'aan lagu caynayo. qofka labaad oo la lacnaday waa qofka caaya diinka ama rasuulka ama ku jeesjeesa mid ka mid ah. ahlu cilmiga ayaa isku waafaqeen in diinta la caaya inay gaalnimo tahay. hadduu qof muslima sameeyana diinta ayuuba ka ridoobay. ilaahay ayaan ka magan galnaye xitaa jaahilnimana ma loogu cududaaraayo. qofka diinka caaya waxaa ku waajiba inuu diinkiisa kula soo laabto towba run ah. qofka arrintaas sameeyana waxaa ku waajiba inuu qubaysto, shahaadateyinkana uu qiro, ilaahayna uu u toobad keeno asagoo badinaya camalka saalixa, iyo inuu ogaado albaabka toobadu inuu furan yahay dunuubtii oo dhan, kabiiro iyo saqiiraba. maxaa yeelay haddii uu insaanku toobad keeno toobad nasuuxa oo uu oofiyo shuruudii toobada, ilaahay ayaa aqbalaya toobadiisa. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. addoommadii ilaahay oo nafahooda ku xadgudbayow ha ka quusanina naxariista ilaahay, maxaa yeelay ilaahay wuxuu dhaafaa dhammaan dunuubta. ilaahayna waa mid dembi dhaaf iyo naxariis badan. ninka saddexaad oo la lacnaday jannadan aan gelayn ayaa ah ragga isu ekaysiiya dumarka cod ahaan, labis ahaan ama qaab ahaan. maantana caado ayay ka dhigteen dhallinyaradii iyagoo fiis ku raadinaya. waxaa laga wariyey ibnu cabbaas radiyallahu canhu inuu yidhi lacana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam almutashabbihiina min alrijaali binnisaa'i. rasuulku wuxuu lacnaday ragga dumarka isu ekaysiiya, walmutashabbihaatu min annisaa'i birijaal, iyo dumarka ragga isu ekaysiiya labadaba. sidoo kale rasuulkeennu wuxuu lacnaday dumarka xirta ragga dharkooda iyo ragga xirta dumarka dharkooda intaba. sadaqa rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam. ninka afaraad oo naxariista ilaahay laga dheereeyey oo la lacnaday ayaa ah laaluush bixiye iyo laaluush qaate. nebiga ayaa yidhi sallallahu alayhi wasallam lacanallaahu raashii walmurtashi. falkan rishwada la yidhaahdo ayuu islaamku xarrimay asagoo weliba adkeeyey xaaraamnimadiisa. rishwada ayaa ah in la bixiyo qadar maal ah si loo fuliyo dan qofkii mas-uulka ka ahaa ka soke. xaaraamnimada ayaana sii adkaanayda haddii danta maalkaas loo bixinaya ay tahay in xaq islaameed la burburiyo ama qof islaameed la dulmiyo.
rishwada ayaa ah dembi kabaa'ira oo ka mid ah waxyaabaha uu ilaahay ka xarimay addoommadiisa muslimiinta ah rasuulkuna wuu lacnaday sallallahu calayhi wasallam qofka samaynaya waxaana nagu waajiba inaan ka dheeraanno oo ka digtoonaanno dadkana uga digno ciqaabta ku sugan iyo fasahaadka iyo dembiga weyn la soco qaybta labaad muuqaalkan like saar oo sii sheer garay mahadsanid